gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan iyo sidoo kale ciidamada warkacayo ka mid yihiin ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wali waxay ka wadaan howlgallo waaweyn oo lagu baacsanayo kooxda al-shabaab deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha Cali Jayte Cismaan oo baahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan howlgallo ku saabsan al-shabaab isla markaana laga weerarayo cirka iyo dhulkaba. howlgalkan maanta ay sameeyeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan deegaanka ka tirsan ayaa sheegay in howlgalkan la sii wadi doono ilaa laga saaro deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo wali ku sugan yihiin qaar ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab. gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo howlgallo waaweyn ka wada muddooyinkii dambe deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa sheegay in howlgalkan lagu baacsanayo al-shabaab in laga sii wado deegaanadaasi isla markaana aan laga caajisin howlgallada ay ciidamadu ay wadaan. howlgalkii ugu dambeeyay ee maanta laga sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan gudoomiyaha uu afku ku dhuftay in howlgalkaasi deegaano hor leh oo al-shabaab ku jireen in gabi ahaanba xilligan laga baacsaday isla markaana la gubay. ciidamada ayaa sheegay inay sameeyeen howlgalkii ugu culuslaa isla markaana cirka dhulkaba laga weeraray al-shabaab isla markaana deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan gabi ahaanba ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ay xilligan si rasmi ah ay uga saareen. wararka duwan ayaa ka soo baxaya weerarkii ay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada warkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ay ku qaadeen maleeshiyadka al-shabaab deegaano badan ay ku dhuumalaysanayeen ka tirsan gobolka Hiiraan deegaanadaasi oo inta badan ay dadka dhibaato shacabka ay ku hayeen. ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha hadlay ayaa sheegay in howlgalku uu yahay mid qorsheysnaa isla markaana hore looga sii baaran degay in deegaanadaasi ay ku sugan yihiin al-shabaab in xilligan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar culus ay ku qaadaan. bajirta warcad oo hadda naga soo gaaray gobolka Hiiraan deegaanka ka tirsan isla markaana ma jiro wax rasmi ah haatan ka helno khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray dagaalkii qaraaraha ee ku dhaxmaray gobolka Hiiraan qaybo kamid ah isla markaana al-shabaab ay ku dhuumalaysanayeen. ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa halkaasi wali ku sugan waxaana jirta in deegaano hor leh al-shabaab wali ay ku sugan yihiin isla markaana aysan wali u suurtagelin inay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xilligan ka saaraan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa keesta kale waxa uu ka hadlay in ay jiraan deegaano kale oo wali ku dhuumalaysanayeen haraadiga al-shabaab isla markaana xilligan laga saari doono walow uu soo gudoomiyaha afka ku dhufan deegaanadaasi walow ay jiraan deegaano badan ay qabsadeen ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo warkacayo gudoomiyaha Cali Jayte Cismaan. howlgalladan ciidamada ay wadaan muddooyinkii dambe ayaa ahaa howlgallo qorsheysan isla markaana inta badan laga fulinayay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo la sheegay in halkaasi wali ay ku sugan yihiin haraadiga kooxda al-shabaab isla markaana deegaanadaasi ay si rasmi ah uga saarayaan ciidanka hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo howlgallo waaweyn ka wada deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. qorshaha ayaa ah in deegaanadaasi si rasmi ah looga saaro al-shabaab isla markaana ilaa haatan ma cadda sababta rasmiga ee deegaanadaasi ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay al-shabaab ku dhuumalaysanaysa ay uga saari waayeen. howlgalkii ugu dambeeyay ee maanta la fuliyay ayaa ahaa howlgal ugu weynaa oo ahaa howlgalkii ay ka fuliyeen dawladda federaalka ciidamada taabacsan iyo ciidanka gudoomiyaha hogaaminayo isla markaana ay ciidamadu ay adeegsanayeen diyaaradaha aadka qumaatiga u kaca oo halkaas ku sugnaa isla markaana cirkii dhulkaba laga weeraray deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo al-shabaab ku dhuumalay.